ku dhawaad 20 dukaan oo ay leeyihiin Soomaali kuna yaala tuulada Konabushla oo duleedka magaalada Yudnig ayaa shalay ilaa maanta ay cagta mariyeen shacabka deegaankaasi. falkan boobka ayaa bilowday kadib markii ay maalmahan booliska baarayeen ogolaanshaha warqadda ganacsiga ee dukaamadaasi. dukaankii laga waayay ruqsadda cadaynaysa inuu fasax ka haysto dawladda albaabka ayaa loo laabayay ganacsigiisa waxaana loo taxaabayay xabsiga. fursadaas waxaa ka faa'iideystay shacabka deegaanka oo bililaqa kula dhaqaaqay dukaamadaasi. waa kan mid ka mid ah ganacsatadaas isagoo Universal TV u warramaya waxa uu yiri shaasa u jeedin midabku uu ka jira saddex bari oo dhibkan oo meeshan ka socda xalay waxaa la boobay saddex dukaan oo dariskayga iyo xaafada kale ugu dhigan village kale ugu dhigan oo 13 kala hadda waxay maraysaa boobitaanka 17 bay maraysaa. hadda dukaankan u jeed wiilba baangar lagu dhuftay mid kale oo xalay saas u jeedinay waa la gubay mid kale oo asigna meesha yaalay hadda saddex qof oo Soomaaliyeed waxay yaaleen isbitaalka yaalin saa u jeedin booliska u jeedin waa alaabta ay ka guranay waxay caawinayaan malahan waxay ku leeyihiin waa idin caawinayna dhanka lacagtay ka marayaan lacagta deerkan way qaadanayaan frijada waxay ku jiro muhiim ah. sidoo kale Suleymaan Xuseen oo ah gudoomiye ku xigeenka jaaliyadda Eastern Cape ayaa isna kamid ah shakhsiyaadkii gurmad ahaanta u tagay halkaas waxaana isagoo TV-ga caalamiga Universal u warramaya waxa uu yiri shalay dhacay ilaa xalay ilaa maanta ayaan ku dhex jirnay waxna hadda wali abtuna waan ka qaban laanahay taasoo hadda aban booliska markaan damcay inaan la kulmo commander of the police commissioner ayagana way ii diideen inaan is aragna oo la kulmo inaan interview ka qaado oo wareystaan rabnay dhibka Soomaalida ku dhacaya ayagana waan iswayna waxay dhaheen ilaa berrin baad arki kartaa. qoliyaha UN-ka waan wareystay UN-kina waxay soo direen ciidamada wadankan reinforcement oo police ay u soo direen ayagana wax ma aragno waxaan u arkaa aniga dhibkan dhan inuu ka dambeeyo booliska wadankan iyo dadkan wadankan community-ga ah maxaa yeelay dukaamada kuwa safe ah qaar ayaa hadda ay booliis intay u tageen si xirayaan dukaankii la xirayana waa la boobaya marka arinta waxay u arki kartaa macnaha waxaan u arki karnaa dhibaato kale halkan marka waxaan ka codsanayaa macnaha dawladda Soomaaliya arintan inay maaragta aad ugu faradheeraato haddaba boobkani ka soconayay tuuladaas ayaan jirin gurmad macquul oo ay heleen ganacsatadaasi Soomaaliyeed marka laga reebo ciidamada amniga oo ganacsatadaasi ku qasbay inay alaabadooda rartaan inta xaalku degayo. محمد حسين يوسف حاج التهريب Universal TV مقالة Port Elizabeth South Africa.